qof ugu horeeyaan qaracay cawaale anbo waanu ogahay taayso cid kasta lambarkiisu haysan weydiiyada doodayaal ku soo dhawaada in waraysi gaar ah oo ku eegi doono in maxaa cusub gaar ahaan in dhinaca baraha bulshada maxaa cusub maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa si aad ah in loo hadal hayay in bandhig faneed gaar ahaan in show lagu qabanayo Djibouti oo ay ku qabanayaan qaar ka mid ah fanaaniinta in caanka sidaadka looga xiiseeyo gayiga Soomaaliyeed hadal hayntan in aadka weyn ee fanaaniinta in Soomaaliyeed ay imanayeen Djibouti ayaa waxaa si aad ah u qabsatay baraha bulshada iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan haddaba waxa hore loo yiri in saxaafadu waa lafdhabar rubbe ku salaysan tahay waxay siisaa bulshada war sugan oo saxar lahayn hadii si xun loo turjumo xaqiiqda laga sandugo war faafintu ma hasal Soomaalidu waxay tiraahdaa si xun wax u sheeg sixir ka daran haddaba dawdeersa aan ummadda reer Djibouti aan ugu bayaamino in bandhig faneedkaasi iyo cidda qabanaysa waxa uu ka kooban yahay waxa in waraysigan in gaarka in Martin looga afayeenka in ururka iyagu soo hindisay qabanqabada bandhig faneedkaasi nimco waana gabadh kamid ah dhalinta reer Djibouti in waxaana ka tirsan tahay in urur reer Djibouti oo iyagu hindisay inay soo marti qaadaan fanaaniinta Soomaaliyeed laakiin ma aha sida wax loo sheegayo oo ah in fanaaniinta Soomaaliyeed ay ka heesayaan xafladii rasmiga ee calanka balse waxay tahay in xaflad kale oo ay ugu talagaleen dhalintan inay u qabtaan bulshada reer Djibouti laakiin xafladii caadiga ee calanka lagu xuso in habeenka 26ka toddobaadka ay kala wareegayaan waxa iyadu iska leh fanaaniinta qaranka ee Jamhuuriyadda Djibouti haddaba in ku dhicin waxa soo dhan waxa marti ugu ah in dhalinta fikirkan soo hindistay nimco san sheegay in waxa ay tahay in afayeenka ururka soo hindisay qabanqabada in fanaaniintaasi caanka ee Soomaaliyeed ee iyagu imanaya in 27 June Djibouti marka hore nimco ku soo dhawo waraysigan gaarka ee waxaad noqon warantaa in ururkiina iyo waxaad ka shaqeysaan ururkeena waxa weeye association supplémentaire waxa ugu talagalnay waa urur dhaqameed inaan dadka u bandhigno sida shooyada ama waxyaalo kale oo ka helaan dhalinta wadanku waata dhaqan xagalo waxaad marti qaadeen in dhawaan in fanaaniin Soomaaliyeed oo imanaya Djibouti suun ugu dhashay fikirka wuxuu noogu dhashay maadaama ay tahay maalin oo la xusayo calankeena inkastoo aanu qaadaninba maalintii ay fanaaniinteenu heeseen ama bandhigeen heesaha calanka waxaan sida ahaan kuna jeclaysanay inaan la qabsano farxadda wadanka oo keenta fanaaniinta laga xisay TikTok iyo xas sida fanaaniinta aan dhageysano aan jecelnahay inaan keeno oo farxad la wada qaadano waatay laakiin waxa la isweydiin karaa waxa ku jira fanaaniin caan ah oo si aad looga dhageysto Djibouti iyo Soomaaliyeed sayidi in hirgashay inaad inta fanaaniin aadashan maalin anako oo ku jirna sida u dhigilaan shoogan baan la kulanay DJ Swear oo Snapchat-kiisa soo dhigay inuu ku soo degay hotel Acacias waan soconay oo ku garab sugnay maalin waan weydiisanay garab inuu nagu siiyo fanaaniinta keeno wadanka aduu naga aqbalay una garab galay waa tahay in runtii waxa u fiican waxa ka mid tahay isdhexgalka dhinaca in fanka in ikasti oo hadii aad ka dhigi lahayd waqti kalena de hadal hayn caynkan oo dhici lahayd hadana waxa la isweydiin karaa 27 June xilligii calanka Djibouti maxaad uga dhigteen maxaad ugu yeeri weydeen xilli kale oo in ciid oo kale ama boorani oo kale صح taas waan ku khaldamnay oo way ahaydna ciid ka dhigno ama way ahaydna ka dhigno maayamaha kala bunaaniga laakiin haddana anagu ma jeclaanay maadaama calankeena la xusaayo ay farxad tahay ay dhalintuna u baahan yihiin farxad badan sida ahaan uga dhiganay maalintaas raalina nalaga noqdo anaga xumaanta anaga may ahayn bas maxaa la raada farxad galiya dadka uma naga ahayd maalinkii oo calankeena la xusay Levancisna kama dhigano maalinta labaad ba ka dhigi doona insha Allah dadka qaar baraha bulshada waxay leeyihiin dawladda u yeedhay fanaaniintan oo fanaaniinta Djibouti lagu baabinayo wax dawladda ku shaqada ma jirto hawshin bay qof aan dawlad ka socdo oo na garab galay horta ma jiro waa weydiisanay garab qof kasta oo naga aqbali waayay wax socda ma aha bay yiraahdeen markaas annaka baa urursanay ururkeena annaka ma isdiirigelin amsa u qabsano shoogaas qof dawladda naguma jiro waa tahay in ugu dambeyn baraha bulshada in waxa in sidoo kale in qabsaday uu leeyahay fanaaniintan waxa lagu yeeray si fanaaniinta Djibouti loogu xaqiro in meena ku jira fanaaniinta Djibouti bandhigina ku jira fanaaniinteena sida fanaaniinta imika soo caan baxday Raxma Rose Raxma Xasan Suhayb Faafi Ahmed iyo geelo waa tahay waxa kale la isweydiin karaa fanaaniinta kale caanka sida cawaalo oo kale oo la hadalaya baraha bulshada maxaad uga rabteen cawaale kama nuureebin cawaale maalinka fikradda ugu qabatay inaan sameeyno showgaas
كو قف كبورين وعني يسووا أها وحنا نقول إري أو سيدنا أو وين تلفون نقول قبل واي من آخر كم كان وحنا نقول إري وحنتيجي يا قبل هذا حلقة كقبلنا يا شقة دود يلسي شكتي إن نمعو إن عوالي حتى وين سيجو مرتقدا بدقن بل وحن إيجي دولا مركن إن دي جي سوبر أو يسوقو إن أرد سناب شات كسر دقي إن مقالو كهاد ليو إن دور كعوالي أو يشعرين إنه كلا قيب قلا بندقاسي يوكيري بل إلا دعوة مركن عوالي هذا ميو حرية إحساس درادد بنا شو كسوبر وأنا وكسر قيب كلا وبين تاسدت كحاسد أما تشلسيجا واي ولكن والسوبر ستار نكا فنانين وقطبسن طبعا كلا باتكي سنة وقطبسي entertainment ديناصور بندقة حاسيسة أنا كل راح أسنو واي أو حاسيسة أنا ولادي دين وحرية كداية حاجة وحكسي بيننا أنا كلا ما دنك دولة عوالي سكود عسين ومية كان برنامج كمر كان لبوا ولا لا فرحان يليبان وحقنا نكسلامه organization وأورور دلنيرا ويا دولتي وحاس كمان تبص شغلنا ودلنيرا أورور اسكت هاشتاي ضد كنا عاوية مركي ويدين قف وهريان كنا عوالي هذا مبوا وانو أوجي هاي تاي سو عد كستر لما مركي سوايسن ويدين ده ساقي تدويلة تكوس يقول سوار ولا لا مدلر أيا وسير كما جعيسى كما قلنا أيا إبو كاستيو وحنكوس عنا قبل marka hadadan aan la hadlayo heesuu diyaarinaya dabaaldega 4 gobol bay ka soo heesayaan isaga iyo dhalinyaro kale oo dabaaldega 27 June marka xaggaas waxay inay cadaatay dadka lama dawladda isku dhacsayeen dadka la adugu haters waliba cawaale haters waa daaya walaalka soo dhaayay daaya dabaaldega maxaa la 4 anagu hadan kibnis ka dhigano qaar gobol ay ka dhigayaan qaar ay ka dhigayaan garoonka waa beautiful waa wadankii horumarkiisa tusasa wadankii nabadda tusasa wadankii xorriyadda tusasa inta xaasid ku ah marka ama fanaaniinta ku ah ama aniga igu ah waxa soo dhan gooni taw dhigtaan ku farxa walaalihiin wadankii gudaha jooga ilaa ku gudaha jooga way ku farxaseen inta dibadda joogta ku farxa in dhalinyaradii walaalihiin dadkiini ay fanaaniin superstar ay wadankii ka soo degayaan ay entertain garanayaan oo dadkooda ay waqti la qaabsanayaan waata wadayaal sadoo socotaan wareysigan gaarka waxa uu ahaa mid aan ku eegayno in hadal haynta baraha bulshada waad ka bogoteen nimco say sheegaysay in afayeenka ugu dambeyn nimco maxaad ku leedahay umada Djibouti waxaan ku oranayaa horta warkan beenta la dhax socdo meesha ma fiicno waxa la hubsadaa fiican fanaaniintana marti bay noo yihiin kuweena way joogaan ka soo qayb gala habeen farxad ay noo tahay wax babaana ka sheegno way xun tahay anaguna ni soo dhaweena anaguna soo dhaweeya sidaa ay farxad baan noo balan waatay dawadayaal Jamhuuriyadda Djibouti tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa Djibouti ay ahayd meesha kaliya ee fanka Soomaaliyeed uu ka noolaa fankuna in xuduud male in qabiil male fanaaniinta reer Djibouti iyo kuwa Soomaaliyeed hadii maanta fanaaniinta inta leego Soomaaliya ay Djibouti imanayaan waxay u tahay magac waxay u tahay maamuus nabadda iyo horumarka dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxa la xasuustaa 2 sanadood ka hor in kooxdii حرب إني كهسن حفلة كودة لوليو كذا عند مجال المقدسو وحنا قريب كتاز دعالك إن فرحتها إن لبض أمضاد فكنا إن قبيل معها هذا واحد قلت لنا دودير ورث قاسي مرتدى جو هيد النمو تدبكوا بدون ورثي مثل مدة نبتقليو يا من الله